waxaad dhibaato ku qabtaa mobile datadaada oo markaad ku subitidba internet ama mobile data si fudud ayay kaaga dhamaataa. muuqaalkan waxa kula wadaagi doonaa sirar ama habab fudud oo ku dhaqaalaysan kartid mobile datadaada si markaad u isticmaashid lacag yar qadkan muddo dheer aad ku jirtid. subscribe sar channelka sidoo kale gambaleelka furo si fiidii walba kugu soo dhaco. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نما سعبت ملبو جوجتاني سولبانو مقليسان وين سلامي ولكن عبيد داير هلكا 10 كان كلا سoctaan waa shabakada Sid Groups. hadii aad channel ku cusubtahay waxaan ka codsanayaa mar labaad inaad subscribe ku sameyso channelka sidoo kale like saartid muuqaalka arintaas aad iyo aad inoo dhiirigelinaysa. anagana waxaan ka balan qaadaynaa inaad wax badan naga faa'iido doontid insha Allah. muuqaalkan waxaan ku soo gudbi doonaa sida u dhaqaalaysan kartaa mobile datadaada. okay markii mobile data laga hadlayo waxaa jira waxyaabo badan oo internetka يعني ka dhamay kara iyo waxyaabo aan kaga bixinin wax lacag oo wax yariis oo sentiyal ay kaga baxayaan. tusaalahan marka fariin diraysid fariimaha wax lacag kuma baxaan marka qof wacdid lacag kaga baxayso balse lacag waxay kaga baxaysaa waxyaabaha faylasha aad ku waaweyn sida video kale marka daawanaysid marka wax la soo degayso oo kale sawir marka diraysid waxyaabaha soo idil waxay ka dhamay karaan mobile datadaada waliba si fudud wayna adag tahay in aan ilaalino ama xadidno datada naga dhamaanaysa oo aan ku bixinayno waxyaabahaas. laakiin muuqaalkan waxa jecelahay wadooyin kale oo aad ku dhaqaalaysan karto internetkaaga oo laga yaabo in mar dambe aysan si fudud kaaga dhamaan. okay baaritaan aan isku sameeyay waxyaabaha mobile datada iga dhameeyay waxay noqdeen 3 shay. okay YouTube maanta dhan waxaan daawadaa YouTube-ka aniga laakiin waxaan ku daawadaa HD waxaan la jeedaa muuqaalada waxay ugu fulmayaan yani HD ugu dambeeyay oo si fiican oo clear ah arkaya. taasi waxay iga naaqusinaysaa ama si dhaqsi ah u dhameynaysaa mobile datadeeda. si arintaas ugu fogaado waxaan iska xiray in muuqaal walba HD ugu furmo meel dhexdhexaad ah oo aan arkayo muuqaalka lacagna iga bixinin. aan kula wadaaga wadada waxaad soo furanaysaa taleefankaaga waxaad soo kacsanaysaa barnaamijka YouTube-ka kadib waxaad tagaysaa qaybta kore ee ciwaanka kadibna waxaad ku dhufanaysaa halka ku qoran tahay settings waxaad ka dooranaysaa halka ku qoran tahay general meesha ku qoran tahay limited mobile data usage meeshaasi wuxuu ku leeyahay muuqaalada si HD laga xiro waxaad furtaa buttonkaas soo buttonkaas furo taasi waxay ku saalaysaa markii aad mobile data isticmaalaysid in muuqaalada YouTube-ka ah aysan lacagta ka dhameenin laakiin markii aad Wi-Fi isticmaalaysid muuqaalada HD ay kugu furmaan. mid labaad ayaan ogaaday taasoo dhameynaysa mobile datadeeda dadkana sidoo kale ka dhameeysa waxay tahay WhatsApp-ka. WhatsApp waxa laga yaabaa in boqolaal group lagu soo diro boqolaalkaas group waxa lagu soo diraa muuqaalo sawiro adina kama warqabi kartid groupyadaasi oo waxa arkaysaa muuqaalo ku soo dagay muuqaaladaas waxa laga yaabaa inay ka cunaan 100 MB oo kale. saad arintaas ugu badbaadid waxa soo furanaysaa WhatsApp-ka kadib waxa tagaysaa qaybta 3 dhibcood ee kore waxa ka dooranaysaa settings waxa ka sii dooranaysaa ka qoran tahay data and storage usage waxa tagaysaa meesha ku qoran tahay when using mobile data meeshaan hadda waxa ii furan dhammaan dukumeentiyada ayaa ii furan photoska sawirada muuqaalada. okay micnaheedu waxay tahay inta mobile data ii furan tahay waxa soo gudagi doona sawiraanta codadka fiidiyoyada dukumeentiga wax walba la soo diro mobile-ka ay ku shumayaan taas oo dhameyn doonta mobile datadeeda. haddaba waxa iska xirayaa dukumeentiga fiidiyoga codka sawirada intooda waxaan leeyahay iga xir oo TikTok ayaan ka qaadayaa. taasi waxay ku suurtagelinaysaa in wax walba oo lagu soo diro aysan ku soo degin si automatic ah oo adiga ayaa soo dejin karta oo kaliya. marka laga yaabo hadda kadib in group lagu soo diray ee ka cunaan mobile data oo muuqaalo aad rabin taleefankaada ku soo shubaan kuma soo dhici doonta kadib. midda saddexaad oo soo ogaaday oo dadka mobile data ka dhameeysa anigana iga dhameeysa waxay tahay waa updateska taleefanka ka dhaca. taleefankaada waxa laga yaabaa habeenkii markaad mobile-ka uga seexatid ama maalintii aad ogeen mobile datada markuu arko inuu update sameeyo oo ka faa'iideysta xawaaraha uu leeyahay mobile datadaada. haddaba programka ka hadlay waa Play Store-ka wuxuu update ku sameeyaa dhammaan barnaamijyada kugu jira taleefankaada YouTube-ka WhatsApp-ka Instagram-ka wax walba kugu jira ayuu update ku sameeyaa habeenkii taasoo sahlaysa in mobile datadaada ay si fudud u daabato.
WhatsApp-ka ayaa cuni kara 200 MB markuu update-ka marayo taasoo halis ku ah mobile data-daada haddaba si aad taas uga badbaadid waxaad soo furanaysaa Play Store-ka kadib waxaad tagaysaa qaybta kore ee bidix ee saddexda xariiq ah waxaad ka dooranaysaa Settings waxaad ku dhufanaysaa halka uu koresay ku qoran tahay Auto Update Apps okay hadda markaan meesha soo galno waxaan aragnaa in meesha dhexe uu tigta ii saaran yahay wuxuuna meeshaan sheegayaa in mobilka update-kayga uu mari doono ama applicationada update lagu sameeyo doono markii aan isticmaalayo mobile data ama data charges si aad taas uga cararno waxaan taaban doonaa meesha uu koresay ku qoran tahay Do not update apps waxba update ku sameeyna application-kayga laga bilaabo maanta ma laga yaabo in applicationadaada ay updates mariyaan oo mobile data-daada aad ogeyn ay kaaga dhamaadaan saddexdan wada hadaad martid oo maanta aan marnay waa hubaal in aad mobile data-daada dhaqaaleysan doonto haddaba magacayga waa Cabeydar halka casharka kala socoteen waa shabakada Sid Groups inta muuqaal la mid ah ka kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo macasalaam bye